السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka soo dhawaada waawaski duqbulowha kablo faarax walaalkiis macowkii ka yara Bashir Balla mataanaayeen xasan goro saaxiibkiis qarasho diriskiis ku noolaa uraawna garseekuusa haaja bakaja lagti macalin shuuriye banaan weyn shanta baqab qoray aadiyaad reen nabad iyo nolol gacmaha ilaahay idima gooyo عدردن كتورة بيت والبا يميل بكتورة نجا قوليسن مايان حراش قرن نجا قوليسن مايان كوا آمنسن ضل كيان الصوماليا إنه يهوز جيان عدوجا نجا قوليسن مايان كوا آمنسن صوماليا إن إسبارة الدبلوج عليه نجا قوليسن مايان كوا آمنسن صوماليا إن دبلوج عليه لبعتن سنة كهر ماشي تاجنت إن شاء الله هدو إلهي يرادو صومالي نمدا قولي سريسو صومالي نمدا عركا ماري دونتو دل كنغانا برواقو نغن دونا إن شاء الله هدو إلهي يرادو لو جو جن مايو أفرت شخصي إيقابيالا دامسن مليون صومالي وعانك بلوغة إنا يقولن ديارة يا دل كينجو هذه يا سودو هذا ميول بتو ديو دكا سوغنتهين ما أنت وحي دعي معجزة يحي ما أنت سياسة الصومالية وحان هوري لوغو أرق أيا لوغو أرق هادا كهور إنت أنا وربحين تنقلين أنا ودوغبلوه أو لايف سوغلو برطان كهالنو ينهبين يمارين انتي دقيستي وي دقيستي انتي وقتك إلا سعودتي أو دوغبلو فلور أو أهيد ويلا سعودتا هبين يمارين با وحان كسوع العلنجري حراش غران نمكان كيان إمارات كأوشاقيو معارض كشيكتي هالشبيل كسو جيدو نقالا مهيان انتي يريدي هيستيننا وكذا ما طوه تلدي الدقنايين باكا الرسطي بهذه كوير هبيني يمارين وحيس كديان إني بوق كعيان دول اندماد الصوماليات أمني جيدو اي خلخل قليان إن معناها ميلون لعقيه إمارات كيان كميلي صوماليان سيئو إهران وذوك تينو ويد نحضاس أبريل واتاي موريان تسوق لي المقالة مقدش واتاي هي مقالة مقدش موريان تسوق ليين ويلبور كلد عين مدافيع واتذر كيسين حسن شيخ محمود يعد رحاب شكور كان رواقة بدن بقرر ساي بدي الصوماليات قطي إمارات كيان كو سيدا توسكا وشيغانا ينو وشقيو دمع سنة الصومالية إن معناه قرشها أي كليهين وأفليو waxay isku dayeen muddo badan oo dheer in ay magaraysaay dhaqaalaha imaaraadka soo geliyaan dalkeena anoo duqbulo waxaan idinku lahaa oo habeeniye maalin anoo live ku jira bartan idinka soo gudbin jiray oo idinku dhihi jiray oo oran jiray anoo duqbulo dhageysta waxa la tababaray wiilal yar ah oo Soomaali ah oo wax bartay gabdho yar ah oo Soomaali ah oo wax bartay loona tababaray sida sirdoonka caalamka ay u tababarayeen loo tababaray yaa eelaboorka naga dekadaha naga dalkeena Soomaaliya gacanta ku hayaan idinku ina sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxay la dagaalamaan oo si toos ula dagaalamaan baan idinku iri muqaadaraadka dalka naga la soo geliyo al-shabaab qaraxyada la soo galayso dhaqaalaha aan magaraysaa xisaabsanayn corruption ka ah loogu talagalay fowdada in magaalada looga kiciyo yey la dagaalamaan baan idinku iri xaraash qaran nimanka Kenyaanka iyo Imaaraadka u shaqeeyo waxaan idinku yiraahdo duqbulowe lacag meel ay ka soo geliyaan dalka ayay garan laayihiin hadday isku dayaan inay magaraysaa wadada soo maryaanna waa laga dhici baan idinku iri airport-kana 10,000 wax ka badan sida caalamka eelbooradiisa u shaqeeyaan iyo airport-ka naga u shaqeeyaan baan idinku iri $10,000 lacag ka badan qof la soo gali kara dalkeena ma jiro oo aan soo marin xisaabta bangiyada iyo magaraysaa procedure-ka loogu talagalay dhaqaalaha dal lala galay aanan soo marin dalkeena lama soo galayaan idinku yiri dhaqaalihii carabta laga soo qaadi jiray dhaqaalihii Kenyaanka laga soo qaadi jiray dhaqaalihii Tigreega laga soo qaadi jiray wiilal baa loo tababaray baa idinku yiri muddo dheer baan arrinta ku celcelin jiray انت هذا كان هذا اللي والله لودي السنة كي قدام بيبان كل علني دقيش هذا كان
anoo duqbulow maantana waxaa caddaatay hadalkii asaga ahaa ee anoo duqbulow aan intaa ku celcelinayaa maanta caddaaday 30 milyan dhacay 30 milyan dhacay dadku magaca way maqleen laakiin taariikhda inaysan haynin baa dhici karto 30 milyan dhacay taariikhdiisa wax yar waan geli doonaa warqad buu maanta soo saaray wuxuu yiri ciidamada sirdoonka fiiri ciidamada sirdoonka qaranka ee airportka joogo waa inay isaga tagaan buu yiri waa inay ku wareejiyaan ciidamada booliska dhageysa dalka shaqada ay airportka ka hayaan waa inay ku wareejiyaan ciidamada booliska airportka Muqdisho waxa ka shaqeeya boolis tababaran oo baara baagaga wixii dhibaato airportka u geysanayana xiro waxa airportka ka shaqeeya sirdoon Soomaaliyeed oo loo tababaray in dalkeena ay ilaaliyaan muqaadaraadka soo galayo iyo tugada soo galayso iyo dhaqaalaha la doonayo in hooyooyin lagu barakiciyo iyo aabayaal lagu dilo la dagaalamo sirdoone oo sida caalamka sirdoonkooda la boorada u joogan yaa la boorka naga joogay 30 milyan dhacay meeshu ka socdaani waan garanayaa hal sana ka soo hadlayaan idinku eri in sirdoonkii qaranka Soomaaliyeed ee la boorka laga kaxeeyo oo wax sirdoon ee boorka naga uusan ka shaqeynin oo dhaqaalii imaaraadku ay soo maraan ee la boorka la dooraya laakiin suurtagal noqon mayso arinta ayada noqon mayso 30 milyan dhacayo warqadaasu maanta soo qoray ummadii Soomaaliyeed oo dhan waa yaaban tahay hadday gudaha joogtay hadday dibadda jirtay waxaan baan idin tusayaa mucaaradka naftirkooda kuwii inta yar wadaniyada ay ku harsanayd waa yaabeen arintan ninkan ajaladan hadda sii deen doono idin maqashiin doono waa taliye ku xigeenka horeeto ee hay'adda NISA wuxuu ka tirsanaa hadda mucaaradka qaylada badan kuwooda wali qurbaha joogay idaacadaha Universal iyo TV-yada iyo BBC-da ka hadla oo NISA macnaha lugta u saari jiray dawladana lugta u saari jiray wuxuu leeyahay arintan 30 milyan dhacay waa ku degdegay bal ila dhageysta arintan lagama fikir bulay dhageysta bal xogaa waxaad moodaa warqadda maaragtay in oo lagu degdegay sababtan wax kala ma aha ciidankaas waxay mudan yihiin in maxaan ku raahdaa hogaankooda marka hore la bedelo haddii ay ku waana qaadan waayaan bedelkaasna ayaga dhanba meesha laga bedelo laakiin in gebigoodba garoonka xogaa laga bixiyo waxay khatar gelinaysaa amniga guud ee garoonka wuxuu leeyahay waa runtii ninkan saaxiib baan nahay waa taliye ku xigeenka horeeto ee ciidamada NISA hadda Mareykan buu ku sugan yahay oo maleynaya wareysi buu siiyay idaacadda wuxuu yiri arintan lagama fikirin waa lagu degdegay waa runtii waa lagu degdegay 30 milyan dhacay yaa warqad soo qoro wuxuu yiri ciidamada sirdoonka ee al-shabaab inaga ilaaliyo ee airportka naga inaan la qarxinin la dagaalamo ee magaraysa airportka amnigiisa dhinaca intelligence u qaabilsan buu yiri meesha laga qaado warqad been buu soo qortay dhageysta marka 30 milyan dhacay wax yar waan taaban doonaa waxaan Soomaali Maxamed weydiinayaa rooble iyo 30 milyan dhacay maxaa ku diray ciidamada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ilaan ciidamada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed rag qoriyo wata ma ah dhageysta dalkan NISA rag qoriyo wato oo uniform wata ma ah waa duqbilowgaas shaatiga cad iyo suudka wato kala weyn oo xog iyo macluumaad magaranaysaa soo gudbiyo una soo gudbiyo ciidamada militariga ciidamada booliska ciidamada kala duwan ee dalkeena hadii harmacad iyo danab iyo magaranaysaa ciidamada kala duwan ay yihiin macluumaad bay soo gudbiyaan macluumaad ay dalka ku badbaadinayaan bayna aruuriyaan inta badan dalkeena Soomaaliya magaalada Muqdisho waxa ka shaqeysan jiray wadamo shisheeye si dalkeena loo yiraahdo Soomaaliya dagaal sokeeya ka socdo waa fail state dil iyo dhacba ka socdo si loo yiraahdo sirdoonka Kenya iyo sirdoonka Tigreega iyo sirdoonkii Imaaraadka iyo sirdoonka caalamka oo dhan yaa dhaqaale kaash la soo gali jiray tuugaday siin jireen dib bay sameey jireen ama qof baa la dili siyaasi ah ama qarax baa la rudi
ama waxa weeye dhibaata la geysan oo maleeshiyaad iyo balaayo ya hub la siino la oran orda ma garanaysaa ee fowda kiciin sirdoonkeenna Soomaaliyeed waxa soo dhan bay la dagaalameen waxay soo afdareen sirdoonkii Tigreega waxay soo afdareen sirdoonkii Kenyaanka ee dalkeena ka dhex shaqaysanayay waxay soo afdareen sirdoonkii Imaaraadka waxay soo afdareen argagixisadii al-shabaab ee magaalada Muqdisho ku diri jirtay haldoorka Soomaaliyeed sababta marka su'aasha ummadda Soomaaliyeed isweydiinayso waxa weeye ra'iisul wasaaraha qaranka iyo 30 milyan dhacay maxaa ku diray ciidamada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan hadday noqon lahaayeen militariga hadday noqon lahaayeen sirdoonka maxaa ku diray Soomaali su'aasha waana isweydiisaa su'aasha kale Soomaali la doonayay in isweydiiso waxa weeye sababta maanta keentay eelaboor caalami ah oo shahaadooyinkii eelaboorada caalamiga ay helayeen helay oo sirdoon iyo boolis iyo immigration ay ka shaqeeyaan in 30 milyan dhacay oo amni shaqo ku lahayn oo aan magaranaysaa xeelad amni meelna aan ka soo gelin inuu intuu warqad soo saaro uu yiraahdo ciidamada sirdoonka ee ka shaqeeya eelaboorka waa inay xilka wareejiyaan oo boolis ku wareejiyaan garan maayo xataa boolis waa jooga immigration baa joogo sirdoon baa joogo laakiin targetkiisa waxay ahayd in sirdoonka Soomaaliyeed ee loo tababaray inay muqaadaraadka iyo argagixisada qabtaan yu targetkiisa yahay ma aha boolis waa jooga magaalada eelaboorka waa ka shaqeeya oo amniga ayaga u xilsaaran laakiin sirdoonka waxay qabtaan tuugada dhaqaalaha soo gelinaysa dalka sirdoonka waxay qabtaan argagixisada dalka damacsan inay ka baxaan ama soo galaan marka 30 milyan dhacay macnaha waxaa la dareemayaa ummadda Soomaaliyeed ay dareemaysaa inay ku shaqaysanayaan wadamo shisheey oo amar lagu soo siiyo lagu yiri sirdoonka Soomaaliyeed hay'adda NISA ayaa ina dhibaysay meesha ka kaxay laakiin dhici mayso 30 milyan dhacay dadka magaciisa way maqleen laakiin wax yar aan idinta taabtay dhageysta ma xasuusataan hadda ka hor 2011 Soomaaliya markay abaarta ka dhacday ee ummadda Soomaaliyeed macruusha u baabi'aysa ee uu Sheekh Shariif madaxweynaha ka ahaa dalka wada xasuustaan baan filayaa ee dalkeena Soomaaliya markaas dagaaladii sokeeye aan ka soo kabanayna iyo argagixisadii muwaaqimadii xisbul islaam al-shabaab balaayadaas ay socotay ma xasuusataan in dalkeena uu soo booqday madaxweynaha hadda dalka Turkiga waqtiga inuu ra'iisul wasaare ahaa baan u mareynayaa ya dalkeena soo booqday dawladda Turkiga dhaqaalay ku deeqday dadkii masaakiinta ahaa ee macruushu ay haysay dhaqaalay u deeqday dhaqaalahaas oo raashin iyo dawo iyo isugu jiro Sheekh Shariif iyo ninka la yiraahdo 30 milyan dhacay waa qaraabo dadku sida inay sano ogeyn baa dhici karto waa qaraabo weey dad isxiga weey oo meel hoos isla Sheekh Shariifna waa ninkii soo dhaweeyay Turkiga iyo Erdogan Sheekh Shariif baa dhiilkii siiyay oo yiri ma garanaysaa dadka qaxootiga ah oday inuu daacad ahayn kala garan maayo yaa dhiilkii ninkan iyo 30 milyan dhacay rag kale yaa xirta waa tii ay xiriyaha ka ooteen magaalada Muqdisho korkeeda laga oodan jiray xiriyo waaweyn buu ootay 30 milyan dhacay xiriyihii dadkii masaakiinta dhaqaalihii loogu talagalay galeydii iyo qamadigii la yiri dadka macruusha u dhimanaya masaakiinta ah la siiyo yuu sarriftay sidaas horta 30 milyan oo ku xiray waqtiyada dambana dawladda Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca maaliyaddu ka shaqeynaya ma garay wasiir dawlad iyo wasiir ku xigeen iyo wasiir wuxuu ka ahaa garan maayo in adeerkii Xasan Sheekh Maxamuudna meelaha suu geeyay waa nin macnaha tugnimada ku ilbaxay weey dhaqaalaha corruptionka export ku ah ma aha nin amniga ku taqasusay ma waa nin xerooyinka qamadiga loogu talagalay dhacaw weey 30 milyan dhacay aad iyo aad magaca taa way khaldan ninka asaga maanta warqada uu soo saaray Soomaali weyn oo dhan bay gaf ku tahay sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Soomaali baa garab taagan dalkeena amniga u keeneen ummadda Soomaaliyeed oo idilba ku faraxsan oo garab taagan waxaanu leenahay shaqadiina qabsada roob la helow iyo 30 milyan dhacay waxa weeye amniga ummadda Soomaaliyeed qalqal gelin maayaan airportkii Soomaaliyeed ee caalamiga noqdayna
dib u celin maayaan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo ummadda soomaaliyeed bartaa waxaa uga cad rooble inuu yahay agency u shaqeeya dowladda kenya agency u shaqeeya dalal shisheeye oon annaga noo shaqayn hadda ka horna waad ogtiin waa tii markii badda xaaladeedii ay 2 maalin 3 maalin ka harsan tahay waa kii Mombasa lagu balansaday ee macawuusta xiray aad iyo aad arrintaasoo taagan oo ummadii yaaban tahay yaa haddana waxaa dhacday lehelow rooble inuu warqad soo saaray saacado kadib arrinta dhegaysta warqad buu soo saaray wuxuu yidhi guddi baan magacaabay guddigaasoo baaray inqilaabkii afgambigii maalina weyto laygu sameeyey arrintan waa ku celcelinayaa waa markii labaad ku celinaya dhagaysta adduunyada horay ogama dhicin shaqaale shaqo soo doontay oo qof shaqo weydiistay qofkiina uu shaqo siiyey in intuu public istaago uu yiraahdo qofkii shaqada isiiyey ayaa booskii uu isiiyey asaga damcay adduunyada laguma arag arrinta ayada rooblow waxa aad makarafoonka la wadatid waa arrinta ayada arrinta nooca u dhacayso yaad makarafoon dheer intaad u qaadatay aad leedahay ninkii shaqada isiiyey ee shaqada u soo doontay ee i shaqaalaysiiyey yaa booskii uu asaga ii shaqaalaysiiyey wiga dhacaya ilaa waaba qofkii ku shaqaalaysiiyey aad iyo aad arrinta ayada ayuu maanta wuxuu yiri waxaan magacaabay guddi soo baaro inqilaabkii lagu sameeyay balgiisa halkan guddi ka kooban 5 xubnood wuxuu soo magacaabay wasiirka TikTok-ga ka heeso ee yiraahdo madaxaana furan iyo 30 milyan dhacay hadda ka hadlay iyo Bashir Goobe iyo wasiirka waxbarashada عرب نكى يرادان مجلس صدحان هذا ما هي قدامي أقول كبنادر وقتي قدام بيسولنا يسكون دجرايين اللي هو ذي دول وحبرشة أقول كبنادر إسكالها إنه دعي ليش وزيرك وحبرشة إنه دول دعي بالله هستا أقول كبنادر أياكل دجال وحقيقة جرتوي بشير جواب ورجل هاي صدر مليون دعي iyo master TikTok yu yiri guddigaas oo wasiir ah yaa waxay baarayaan in aniga la ii afgabiyo ummadda Soomaaliyeed afkay haysataa waana la yaabaya waxa la isweydiinayaa waninka roobla ah miyuu waalayahay mise waa nacas labada wax u dhaxay male inuu waalayahay oo qof waalano miyir qaba uusan ahayn inuu nacas yahay oo aan garanaynin ceebta meelaha ay ka imaanaysa aan la socon inuu yahay 30 milyan dhacay oo amnigii dalka Soomaaliyeed isku dayay qalqal inuu geliyo oo ognahay qaabka uu ku yimid ee uu xilkan ku siiyay aan la socon iyo Bashir Goobe oo asaga difaaciya maalin dhaweeto lahaa qashin meel yaalu xarxartay ra'iisul wasaaraha oo arogna hayde oo dhulkii lagu qabsaday rooble yiri dhul banaan buu xarxartay warag tuuga ah oo ragii dhulka isla dhacaya marmar siiyay wadaan 4 nin 5 nin ka kala garan maaya laakiin 4 nin waa 4 nin oo go'aan ku gaartay in hantida ummadda Soomaaliyeed ay boobaan sababtu 30 milyan dhacay airportka u leeyahay ciidamada sirdoonka laga kaxay dhaqaale rabaan inay mariyaan airportka qolooyinkii xaraash qaran dhaqaale inay kala soo dagaan buy doorayaan midda kale madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed kiis ba hor yaalo uu ku haya ninka la yiraahdo Rooble laakiin wuxuu isku dayayaa in adeerka Cabdiraxmaan Abshakuur ina maka xasan oo isku qabiilnahay ya xabadka ii qaraacanay Sheikh Sharif oo hilmaamay inuu madaxweyne ahaan jiray ya xabadka ii qaraacanay sidoo Sheikh ninka la yiraahdo Xasan Sheikh Maxamuud dhulka u dhacay airportka agtiisa yaan anigana u dhacaya ya ku qufuran dhagiisa dalkan laakiin madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed case weyn oo ummadda Soomaaliyeed inay ku baraarugto loo baahan yahay yu ku haya Rooble case kaas oo ah in uu dhacay dhul
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay iska leeyihiin dhulka waxaa qaas ahaan u leh ciidamada badda Soomaaliyeed waxaa soo eedeeyay sarkaalkii ugu sareeyay ciidamada badda oo mas'uulka ka ahaa gaadiidka badda ciidamada baddu leeyihiin guryaha ciidamada badda leeyihiin dareyska ay xirtaan ciidamada badda dhulka ay leeyihiin ciidamada badda sarkaalkii inta lagu aaminay baa roob la ku eeday كيس بو مدحوينها كو هيا كيس قرصون ما كيس ودقبلو إيا فرماجو أي سميسانيان ما روب لمركي أرنتا صوب بحضي أصوب بيدبا كسوغن أو كان حي يصادر بشير قوبها هادا وليها قدي وزيرو كمد هاي مقرسة قدي وزير رأى يو كمد هاي أورا يا يصادر يرأوردو الدفاع بشير قوبها محجري بل إلا نجيشت وحير dhulka hadda laga hadlayo oo la iga tusay clipka adiga tusteen dhulkaas waa dhul annaga naga dambeeya oo yar waana bad xeeb waay maana dhul ahaan u ahaa ma ahayn dhulku wuxuu ku dhamaa warag tuuga ah oo ayaga isku marxaati furay ummadii Soomaaliyeed ayay damcayaan inay wareeriyaan laakiin laga ogolaan maayo dalka Soomaaliya madaxweynuhu leeyahay roob leh dhageyso la helo hal shaqaal lagu diray shaqadiina hadda waa laga joojiyay doorashada Soomaaliya ayay ahayd lagu ma dirin inaad ciidamada badda dhulkooda dhacdo ka hari meesha arintan ayada Bashir Goob baasaa kugu marxaati furay hadda inaad dhul banaan xaarxaaratay oo ciidamada baddu leeyihiin asaa kugu marxaati furay wasiiradii kale ee macquul galka ahaa ee Soomaali garanaysay ee xalaasha ahaa ee dambiga aan lagu hayn ninkan gudigiisa kuma jira wad arkaysaa waa 42 ee uu watay wasiirkii waxbarashada Arab oo iskuuladii gobolka Banaadir iska lahaayeen damcay inuu dhaco laakiin ninka la yiraahdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ba ka dhigay arinta ayada iyo 30 milyan dhacay oo damacsan in dhaqaale laga soo geliyo imaaraadka eelboorka ee dhaqaalaha si loo soo gelina sirdoonka waa in laga kaxeeyaa taagan iyo ma garanaysaa master TikTok oo iska ka waxa ka sheegaba garan maayo ma garanaysaa yuulaya guddi baan magacaabay guddigaas hadal waxba kama jiro rooblo shaqada waa laga hakiyay shaqaara tahay la shaqaalaysiiyay shaqa la siiyay shaqadaadina waad gudan weyso ummadda Soomaaliyeedna waad ka qarsoomi weyso way ku jeedaan inaad tahay tuug dhacay hantidii qaranka Soomaaliyeed waa ku jeedaan inaad tahay tuug damacsan inuu daqiiqada yar ku taajiro laakiin ummadda Soomaaliyeed xoolaheeda wallahi baadan maalina la dhaqaaqin inta farmaajo u joogo reernabadiina sheergareey cadaladan gaarsiiye beej walba inta maanta dhacdo arinta ummadda Soomaaliyeed waa la yaaban tahay ummadii Soomaaliyeed waa yaaban tahay roob la nin xishoodo ma nin qajira ma waa nin indhaha soo taagayo kule ma garanaysaa ila wax dhacaan doonaya Kenya mar u car mar Jabuuti u car mar ciidamada dhulka ciidamada badda dhulkooda dhac hadar Bashir Goobihi ku marxaati furaya guddi ku dar oo waa la adoo shaqaale fiiri waa kugu cilay rooblo adoo shaqaalo ah oo shaqa soo doonta oo farmaajo u yimid oo application u keenay oo yiri farmaajo i shaqaalaysi shaqa isi oo farmaajo ku yiri maxaad qaban kartaa oo ku tiri dalkan u shaqeyn daacad baan ku noqon loyalty baan ku noqon yiri oo adiga lagu shaqaalaysi yaa leedahay ninkii aniga shaqada isiiyay ee endorsementiga igu sameeyay ee aniga nominationka isiiyay yaa booskayga damco afgambinay nacas baa tahay meesha ka tag nacas baa tahay meesha ka tag nacas baa tahay meesha isaga tag Soomaali dastuur bay ku heshiisay dastuur kale hadii la garab maro ayar macaanade adii ilmaadeerada qadka cagaara ayaad kala dhax dhiganaysaan magaalada ma garat sidii ay ahaan jirtay ee looga baa dib loogu noqon qabyaaladana nin qarsada ma aha roob qabyaalada nin qarsada ma aad iyo aad baan idin salaamaya dhamaantiin waa waaska duqbulo waxa sheergareey cadaalada gaarsiiye beej walba ee meel ku tuura salaamu calaykum ورحمة الله وبركاته بان الله